waxaan idinla wadaagayaa tusaale yar yani tusaale wuxuu noqonayaa sheekaha marka aan dhameeyo yani si aad waxaan u fahantaan wax qaab aaladdan baraha bulshada qaabka inoo saameyso qaabka caafimaadkeena maskaxda u saameyso iyo qaabka fikirkeena u saameyso waxay noqonaysaa tusaale kale safar baa tahay qof baa wada safraysan qofkii aad wada safraysan yani maanta dhan waxaa ka sheekeysanayseen muxaadaro wacdi quraan iyo diin baa ka sheekeysanayseen safarkii marka aad timaadeen meeshii destinationkii ahaa ama magaalada markaas aad doonayseen sax waxaad la kulanteen marka gaariga oo degteenbu laba qof oo is haysto mid kamid marka dagaal buu sababay laba qof oo dagaaltamayeen mid kamid marka wuxuu sababay dhimasho marka dhacdadii marka adiga waa la yaabtay oo dareenkaaga uu isbedelay naxdin baa ku gali oo yani qofkan wuxuu qofka u dilay waayo u dilay qofkani haddana isla markii waxaa aragtay qof kale oo yani meesha taagnaa oo wixii yani ama sawiranayo wixii wax faan ka dhigayo qof baa la dilay laakiin isagu wuxuu arkayaa faan haddana la yaab kale oo kusii geliyo qofkan wuxuu la sawiranayaa madadaalo ka dhiganaya waxaan muxuu faan entertainment oo dhigayaa haddana isla markii waxaa arkaysaa qofka loo bararanayo qof ay iga dhinto tacsiya ii taala oranayo haddana isla markii waxaa oranaysaa qofkii wax dilay oo haddana dhan wax ma dilin yani wax ma geysan haddana qof kale waxaa arkaysaa garab halaniyo laandheeraa tahay waa iska dhicisa ku soco marka intaasoo dareen baa halmar isxigo oo haddana dareemo kala duwan leh mid waa la yaabaysaa mid waa ka naxaysaa mid waa khushuucaysaa mid waa ku khushuucaysaa marka hore tan nin waxaa aad cibaado iyo quraan ku soo jira marka aaladdan baraha bulshadu daqiiqada yar gudaheedu waxaa ku dhex milmi kartaa 100 dhacdo kala duwan boqolkiiba marka maskaxda ay saameynayaan tusaale yar arsinaya haddana tiktok markaa siyaas dhahdo aad iskuro dhahdo muuqaaleysa ka hor imaanayo kuwa ka hor romantic iyo jacayl leh kuwa ka hor imaanayo qof libis qurxan shidan oo like masha Allah iske kuwa ka hor imaanayo comedy tacsi la wado iyo dagaal la wado waxa soo dhan way ku saameynayaan maskaxda dareenkaaga ay saameynayaan marka waxay caafimaadkaaga maskaxda saameynayaan qaabka u fikiraysa saameynayaan yani waagi hore aabayaashani waxaan meedsan la kulmi ka dhex galo marka waxay lamid adiga oo hal mar qaata kiniinkii hurdada kiniinkii soo jeedka kiniinkii madax xanuunka wax hal mar wada qaatay kamid aan arjeenis inay wada shaqeeyaan ma dhacayso waa wax noocaasi wixii markii hadduu noqdo adiga inuu ku hago dee dareenkaaga uu ku ciyaaraya maruu ka oysinaya maruu kaa farxinaya uu ka qoslinaya mar murugu ku gelinaya mar stress buuq ku furaya waxaad arkaysaa muuqaal daawanaysa waa qoslaysaa kan ku xigo waa muxaadaro iyo quraan nabiyaad ku saleysaa kan ku xigo madaxa ruuxa heesaa ku socota kan ku xigo dagaal iyo buuq waa dhiigiyo which means wixii asaga ku hagaya dareenkaaga ku ciyaaraya uu ka qoslinaya uu ka oohinaya hadhow marka ugu dambeyn marka dareemahaagii iyo maskixiyan wuxuu kugu yeelanayaa waxaa iska noqonaysaa laba qof oo dagaal dhiig meesha ku aragtay caadi kula noqonaysaa ku soo aragtay wax ku filan baad aragtay haddii qof quraan akhrinayo dareen iyo khushuuc ma siinaysid masaajid haddaad soo gasho cibaadaysanayso dareen ma siinaysid because salaad marar badan ka hormartay la tukanaa quraan la akhrina cibaadadii dareenkaaga marka waa iska normal waa socoto waa la qabsatay marka wixii la qabsi waa la qabsatay okay waa qofku la qabsanaya dareen ahaan inay u bedesho waxaa kaloo jirto arinta ku saabsan tii hadda aan ka hadlaynay oo gabdhaha oo social media runtii bogtahay waxaa la lahaa men kills people dadka nimanka waxay dilaan dadka laakiin women kill society okay bulshada ay maaragtay la haraan ninka ragga shakhsi buu dadku shakhsi dilaa ninka ragga wuxuu dilaa nin shakhsi ah laakiin dumarku waxay dilaan mujtamaca bulshada waa meesha runtii asaaska haddii meesha laga soo galo waa dhibaato aad u weyn meeshaasaan rabay inaan wax yar aan ku laabto dhibaatooyinka hadda soo baxa oo khaasatan gabdhaha tiktok isticmaalo oo saameynta ba-ana hadda ku yeeshay dadka aadka u faafiya fisqiga iyo fasahada oo runtii hadda aad noogu baahay waxaa sababa waa mar walbana aan u sheegaa dadka waxaan rabaa dhibka hadduu taagan yahay waa inaad xalkiisa araadisid xalka wuxuu u muuqan karaa mid very shallow ah oo aada u kooban mid intaa ka baaxad weyn qofka siyaalo kale uu u fasiri karo aad iyo aad laba siyaabood aan isleeyahay gabdhaha inta badan social media isticmaalo ku dhexwaasho oo dhammaryaha ku tuurtay
way sababaan mid u horeyso waxaa waaye aan isleeyahay waa frustration runtii gabdhaha inta badan ku dhaca oo markaa dabagal aa ku samaysid waa arrin xoogaa aan soo barbaarayay oo nin muddo aan la socday marka waa kind of frustration inuu ku dhaco gabadha tusaalaan raba inaan ku siiyo gabadha waxaa laga yaabaa inay tahay 25 sano jir gabar ka yaroo markaa ayadana soo kacaysa inay jirto gabdhaha wiilasha isku mid ma aha wiilku waxaa laga yaabaa asoo 17 sano jira inuu wili xaafadaha iyo banooniga iyo meelaha laga soo celceliyo laakiin gabadha 17 sano jirka ah way diyaarsan tahay waxay u hanqal taagaysaa inay reer iyo waxay yeelato mustaqbal waa very mature gabadha markaa weyneed oo reerku u weyneed 30 sano jir ku sii socota waa single guriga hooyadeed ay joogtaa midii yarayd oo reerku u yarayd ayadana waxay ku soo socotaa wadada marka meesha waxaa ka dhacaya kind of unhealthy competition ma aha laakiin waa wax iska dhacay wax dhacay waaye oo bulshada noocaas inay u shaqeyso yacni gabadha hadday guurkii ay 30 sano lugaha la galayso tii yareedna ay soo kacayso 18 jir qaangaar ay tahay suuqiina ay ku tartamayaan shuruuc qawaaniin hadda kala hagaysa malaha gabadha u weyn hala guursado tan marka wax dhahaya shuruuc saasa ma jirto qofka marka calafkiisu raadsadaa laakiin frustration noocaas ah uu jiraa oo gabdhaha ku yimaada qofka hadduu cuno uu cabo uu seexdo soo tooso wuxuu u baahan yahay wax intaa dhaafsiisan dhaqdhaqaaq kale u baahan yahay oo maskaxiyan inta badan wax ma baranayaan gabdhihii marka Soomaalida markaas ay u fiirisid oo guri joog ay u badan yihiin wax ma bartaan xirfado ma lahan gabadhi waxaa laga yaabaa inay YouTube ay gasho Facebook in daatadeeda hadday isticmaalaysa data ama wifi waxay noqoto yacni inayna raadinin wax skills ah wax xirfad ah ee nolosheedii ay beri ka maalin ay ku dibiri karto ama ay ku horumarin karto mala marka waxay fiirinaysaa inta badan wax toxic ah aanan u wanaagsanayn dad lamaanayaal ah maxay ku yeelanaysaa marka impact saameyn midda labaad oo aan isleeyahay oo aadka runtii muhiim u ah in laga hadlo waxaa ka mid ah guurka runtii dhalinyarta dadka waxaad arkaysaa qof 30 sano jir ah wiil ah 30 xoogaa jiro laakiin wili aan awoodin inuu guursado gabadhi inuu maareyn karin gabadhi way diyaar waxay u baahan tahay qof guursado reer ay u baahan tahay laakiin wiilkii oo ahaana la simnaa oo la rabay inuu guursado wili asigaan ismaareyn karin markuu adkaanaysaa booska inuu buuxiyo gabadha markaa frustration waxaa jiro oo maaragtay dareen ahaan ah oo imaanaya qofka marka way u sahlanaanaysaa meel walbo inuu booska wax ku buuxiyo waxaa kale oo dhibaatada ugu badan ka mid ah furitaanka gabadhii tusaalahaanba gabadhii waa la guursaday 17 jirka ahayd sababo jira awgood waa la kala tagay ama carafka baa dhamaaday iska badhe gabadhii markaa waxaa kale ay kaashanayso waa social media inay soo fariisto wehel ka dhiganayso marka taasna waa furitaankii oo batay gabdhihii lasoo furfurayana waxaa waaye stress bay la imaanaysa sababtoo wiilkii 30 jirku ah isma maareyn karo waxaa laga inuu ka doorbido inuu gabar guursado inuu ka doorbido bedelku garab guursan lahaa inuu isagu niyad ahaan marka gabadha waxaa laga yaabaa suuq inuu competition ku yar tight yahay oo iyadu ay tahay second option marka taa la soo waayo in ayada ay second option tahay dareen nooca ku jiro waxaan ayna gacanta ku haynin nolol iyo guurna ay soo martay oo ay gabdhahan yaryarka ka khibrad badan tahay waxaan ayna gacanta ku hayn marka taasna inta badan waxaaba jirtaa eray ay dhahaan oo maxaa garoobaha social media soo wada geliyey marka gabar kastoo la soo furay dhahays walaal waa kii waan kala tagay kusoo dhawaada channelkayga waxa noocaas ama la dhaho xaflada dhiganaan baryahan gabadh markii la furo waa arsi xaflad dhiganaysa xaflad aroos camal dhigana waan kala tagnay xaflad furitaan ay dhiganayaan kadib arooska ma ahan furitaan kadib ay dhahdo kusoo dhawaada channelkayga marka taasna furitaankaas qaybin ayuu ka yahay aad iyo aad marka waa dhibaatooyin waa runtii mashaakil aad u baahay oo hadda dadkiin isma bartaan inta badan furitaankana wuxuu noqday mashruuc iska socda dadkii ayagoon is aqoonin inay isguursadaan qof aada garanaynin haddaad guursatid banaanka markaad joogtaan waa khiyaali iyo hasaawi iyo sheeko iyo qofba siduu wuxuu soo bandhigayaa sida ugu wanaagsan uu qof uu isku soo bandhigi lahaa labiska habdhaqanka dhowla cadeynta wax walbo laakiin qofka guriga marka lasla tago
things will become different waa ka duwanaanaysa xaqiiqda ay imaanayso marka waxyaalahaasna way sabab dadkana waxaad moodaa furiinka inay encourage gareeyaan social media markaa fiirisid in dadka kala geyntoodii aad moodid dadka inay ka shaqeeyaan oo wixii la joogaan aad iyo aad sababtoo gabadha marka intii ninkeeda furto ay xaflad qabsato xaflad furiin ay qabsato waa dhiirigelin gabadhii waxaa laga ninkeedii oo xalin kare hawshii inay gabadh dhiirigelin noqoto dhahdo kan hawada ku cun marka furiinka la dhiirigelin noqoto ha aad iyo aad marka qayb weyn ka qaadanayso xaqiiqada marka la tagan marka ay gabadhii psychologically waxaad dareemaysaa gabadha markii ay xaflad furiin qabsato xaflad baa dhacday intaasoo qof aa isugu timid qarash baa kaa baxay saaxiib gurigaa tagtay keligaas rid tagtay maxaad soo qabatay macnaha ay sameeyay lacag baad gubtay keligaa baan guri ku dhalmatay asxaabtii ku eelalaasaysay fanaanka kuu joogay asxaabtii way kaa wada dhalmadeen maxaa ku soo hartay xaqiiqadii adiga keligaa oo reer la'aan ah waa nolol dhalinteeda reer la'aan ubadkii laga yaabaa inaad ka soo tagtay arooskii xafladii aan ka wadaa furitaanka ay dadkii kaa wada tageen what do you have maxaa ku soo haray taasaa frustration kuu filan soo moogi waxaa laga yaabaa lacagtii ay ka qaadatay meerka ah in xaflad ku qabsatay marka waa degdeg inay gubtay gacmo maran tahay ha marka caqabadaha waxay ka mid tahay hadda nahaya